hooyo Amuun Cilmi Ismaaciil oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa haysatana ubad aqoon ah ayaa ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed ee Islaamka ah inay ka badbaadiyaan khatarta iyo halista ka dhalan karta dhul ay degan tahay oo ku yaala waddo bartankeeda isla markaasna ay uga cabsi qabaan inay waxyeello ka soo gaadho nafahooda. Sheekh Mukhtaar Reegal oo ka mid ah culimada xaafadda Daami oo ka hadlay khatarta qoyskan ay ka haysato hoyga ay ka galaan magaalada Hargeysa ayaa walaalaha muxsiniinta ah ugu baaqay inay u soo gargaaraan una soo gurmadaan. walaalayaal run ahaantii waxaynu joognaa waxa weeyaan waa xaafadda Daami taas oo aynu maanta joogno guri agoon dad aad u danyar ah kaasoo weliba dhibka ugu daran agoontan ay haysataana tahay inay degan yihiin goob wadda ah oo waxa weeyaan run ahaantiina halis u yihiin baabuurta iminka booyadda iminka inaag marayso kale ay halis u tahay mararka qaar marka iminka gaadhigu soo laabayo kale inuu ku soo dhowaado markaa waxa weeyaan guriga sidoo kale suuli ay markaa waxa weeyaan ay galaan ma haystaan waayo goobtu waa goob wadda ah oo waxa weeyaan sharciyan meel dhismaysa ma aha sidaa awgeed daasadahaas ay waxa weeyaan markaa ay ku fadhiistaan yaryarku sidaa awgeed markaa waxaanu ka codsanaynaa dhammaan dadka waxa weeyaan muxsiniinta ah ciddii waxa weeyaan bisha khayrka qabta awoodda in waxa weeyaan balood waxa weeyaan loo iibiyo agoontaas waxa weeyaan si ay markaa wadadaas iyo halistooda baabuurta waayo baabuurka waxa weeyaan in yar si khalada wadada uga soo baxa toos wuxuu soo asiibaya agoonta yaryar ee waxa weeyaan aadka u yareeyay markaa bahoodna dhintay marka dhammaan muxsiniinta waxaanu ka codsanaynaa in ilaahay daraadii ay u soo caawiyaan Amuun waayo ilaahay waxa uu leeyahay wama anfaqtum min khayrin fahuwa yukhlifu waxaad khayr ilaahay daraadii aad ula baxdo ilaahay bedelkeegu ku soo wax weyn weydaarin. hooyo Amuun ayaa iyaduna dhankeeda shacabka muxsiniinta ah ka codsatay inay u soo gurmadaan isla markaasna ay ka badbaadiyaan khatarta ka dhalan karta hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa oo ay uga baqanayso inay waxyeello soo gaarsiiyaan gaadiidka mara wadooyinka ku hareeraysan xaafadaasi ay gasho. Rahmatullahi wa barakaatuh. bisha barakaysan ummadda islaamka muxsiniinta waxaan ka codsanayaa aniga oo wada degan 7 ciyaala 7 hablood iyo inaan qurana oo xaafadda ii joogoon dirqiya Allah 9 jeer aanu ku baxsanay halkana wada naga marto oo iska dhibaataysanahay alla mooyaane cid na ogina aanay jirin haddana insha Allah bidmillaahi kareer rabbuuna badbaadiyay habeenkii ma seexdo habeenkii markay boodi mareen waan taaganahay waxaan dhaday ilaahuna badbaad intaaba waxaan ku wari ilaahay uun baan baryaa amarka ilaahayna halkaa waan ku taagnay agoonaan dib lahayn alla mooyaane 9 jeer gaadhi galay aan iska dhibaataysanahay ummadda islaamka waxaan ku codsanayaa ummadda islaamka muxsiniinta halkaa wadadeen deganaya 4 wada iskaga imanaya nusbalood inay ii iibiyaan oo insha Allah aan aniga iyo cawradahaas kaga kacno halkaa meel baydhsan oo fiican aan u degno idinkana miisaanka xasanaadka rabbi idiin saaro xataa waatii hore wadaadku idinku sheegay suulmaliin xataa inamada naga duubaya way arkayaan insha Allah bidmillaahi kareem waxaan idinku codsanayaa adduun cunto waa la cunaa laakiin wax walba waxa ka xun bilaa suuliga adduunka habeenkii sabda xitaa ciyaalku waxay tagaan suuliyada kale waan iska dhibaataysana waxaan ummadda islaamka ee muxsiniinta aan ku codsanayaa insha Allah bidmillaahi kareem balaayada soo wujintay rabbi keenay Allah ka qabto meel kasta joogaanba xanuunka Allah inoo keenay Allah inaga qabto. shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab